بسم الله الرحمن الرحيم تاني وحلقتين لبعضين كجا هاللي arrimaha falsafada barnaamijkeena aynu bixinay murtida nolosha ama philosophy of life tani waa xalaqadii labaad waxaan kaga hadlaynaa jacaylkii u horeeyay ee aqoonta ama filosofkii Socrates sida hore uga soo hadlaynay falsafadu waa laba kelmadood oo la isu geeyo philo Sophie ama philo oo jacayl iyo Sophia oo xikmad saawgeed waa ninkii u horeeyay ee yiri anigu waxaan ahay nin jecel xikmadda filosof saawgeed waa ninkii u horeeyay ee jeclaada aqoonta waana Socrates filosofka loo yaqaan Socrates waxa uu noolaa qarnigii afraad ee ka hor miilaadiga waxaanu dhashay 469kii wuxuu ku dhashay magaalada Athena ee Greeka waqtigaana ka tirsanayd imbraadoriyadii Roomaanka filosofka Socrates hooyadii waxay ahayd umriso aabihina waxa ahaa nin dhagax qoraa filosofka Socrates waxa uu ku noolaaday nolol basiida oo faqiirna ah waxaana uu ku noolaaday dhar aan ahayn qurux badan sida uu yiri filosofka weyn ee Nietzsche qarnigii 18aad sida uu yiri Nietzsche wuxuu ahaa ninka reer Athena ee foosha xun ee ku sababaya dadku inay ku qoslaan kaasi oo ka oohinaya caruurta Athena ma ahayn ninka dadka ugu xikmadda badan hase oo kaliya ee waxa uu ahaa ninka aamuskiisina ugu fiican dadka taasna waxa lagu cabiri karaa in tahay insaaf ama wanaag oo u qiray filosofka Nietzsche Socrates waxayna soo gudbiyay arrimihiisa oo badintooda xiwaaraadka loo yaqaan xiwaaraad Aflaatoon oo ahaa ardaygiisii ayaa qoray badiisa waayo Socrates waxba ma qori jirin waqtigiisii Socrates xikmadaha iyo waxyaabaha lagu xasuusto waxa weeyaan ee koowaad ee uu bilaabay falsafada waxa ugu weyn inuu socon jiray magaalada Athena dhexdeeda taasi oo uu dhalinyarada kula kulmi jiray shawaaricda iyo dhirta saytuunka hoosteeda ee ku yaala waqtiga Athena saawgeedna uu weydiin jiray su'aalo la xiriira cadaaladda khayrka quruxda jacaylka kadib markuu weydiiyo su'aalahaasi dhalinyaradaasi ay jawaabaha ay bixiyaan ayuu ka sii weydiin jiray su'aalo si hooseeya oo waxay si aaminsan yihiin kadibna isweydaarsiga su'aalaha iyo jadalka iyo muxaawaraadka dialogue iyo dialectiga uu bixinayo Socrates oo siinaya ardaydiisa ayuu ka soo saari jiray xaqiiqada uu doonayo kadibna uu sheegi jiray ardaydiisa inay tahay waxa saxda ah saawgeed Socrates waxa uu sheegi jiray ardaydiisa in ay xiwaar sameeyaan dialogue sameeyaan jadal sameeyaan kadibna xaqiiqada dhalaan saas oo jiray baan ka bartay hooyaday waa umaliso waxay dhalinaysaa caruurta aniguna waxaan dhalinayaa aqoonta ayaan ka dhaxdhalinayaa aqoonta iyo aragtiyihiina saasaan ugu bixiyay fikradda dhalinta aqoonta filosofka Socrates wuxuu ku aanbaxay oo kale xukunkiisii maxkamadii shahiirka ahayd ee la saaray ama caanka ahayd ee la saaray waxa kale oo ku aanbaxay sidii uu diiday in uu ga baxsado jeelka asaga intaan gaarin arrimahaas oo idil waxaan in yar ka taaban doonaa erayo kooban oo filosofku uu ku koobay falsafadiisa falsafada Socrates waxyaabaha ugu waaweyn oo aaminsan waxa kamid ah bini'aadamku inuu ku gaari karo wax ugu wanaagsan tahay inuu gaaro ama xaqiijiyo inay tahay inuu markasta kobciyo naftiisa dadkana uu uga tago aqoon on ma dhiirigelin jirin inaad maal kasbato laakiin wuxuu dhiirigelin jiray inaad kasbato aqoon maalin kasta iyo habeen kasta imkana casrigeenan maalin kasta 8 bilood ee kastaba aqoontu hal mar ay laba laabata yani aqoonta la soo bartay intii qarniyo dhan ee dunida soo jirtay ee falsafad iyo taariikh iyo aqoon iyo xisaab iyo wax kastaba leh ee science leh ee vision leh ee adab leh dhamaanteed aqoontaasi waxay laba laabataa 8 bilood oo kasta saawgeed waxaan u baahanay inaan ka faa'iideysano xikmadaasi Socrates oo qofku uu markasta ku dadaalo inuu kordhiyo aqoontiisa ma aha inuu kordhiyo lacagtiisa Socrates wuxuu yiri ma jiro khayr kaliya ma jiro wax ka wanaagsan oo khayra oo jooga koonka dushiisa aqoonta mana jiro shar ka xun kana liita koonka dushiisa oo jooga jahliga filosof Socrates waxyaabaha ugu waaweyn ee ku soo eedeysay maxkamadii Athena waxa kamid ahaa inuu aaminsan yahay ilaah kaliya iyo inuu fasahaadinayo caruurta ama dhalinyarada Athena filosof Socrates maxkamadda
kadib markii dagaalkii Fabius dhacay oo Socrates dagaalamay kadib oo la xukumay Socrates maxkamaddu may dhageysanin ama may ku farxin isdifaaciisii ku salaysnaa caqliga oo ahaa isdifaac aad u qiimo badan oo uu inoo soo gudbiyay Aflatoon hase ahaatee waxay ku xukuntay dil Socrates muddadii uu joogay xabsiga oo ku dhaweyd bil 70 jira Socrates waa nin ku fiican xagga guurkiisa xagga guursiisa 40 jira gabar 19 jira carruurtay معروف بسولها لكن وحنا جري دليل أتينا ودم بعروتيدا مركا فلسفة دي كسر يسن قاب كيس جاهلكو ما يهين فلسفة دي سنورش فقير بسكا وحصل إن هذانا كمان ممنوعين إنه نقضى عن إنه نقضى نجعل يهي إنه نقضى إن لو تحكي لي أتينا سأوجد بقى نرجع لحدنا أو إن بدنا نقاشي الرماية لكم الروح ده سؤال بيدين جري عيد روح دو نولش محاكة سهور كذا نولش ما دمش حاكة سهور كذا مسوي وحبة كسهور كذا يعني دمنا إسايو نولش يدمشوا ولا بس سهور كذا يسوي حيث كسهور كذا دمشوا ينولش يلا شيء وحبة عد يسوي حوي لو يعني هذا دمشوا كسهور كذا وحبة خلاص ودمان بلا معناه لكن هذه كسر جدو دمشق أو نرى كلا للتجيو والشيء أهلا وسهلا نصير وين يعني نرى كلا سفر كلا رحلات كلا أيام بلا بيا ومقامرات كلا يعني ما كلا يو لا يعني ما مثلاً مؤخرا بصراحة قاعدين لكن واحد أجيد إنه نرش الدنباء واحد مهم هيدا نرش الدنباء وسوق تنامي وقت جالسي إنه خير تاعي نرشان adduunka gudihiisana uu ku saamiyay shayga kaliya ee noo soconaa inay saacado saawgeed aan xaqiijino saacadada aynu ka doonayno nolosha saacadada aan ku xaqiijino aqoon aan ku xaqiijino fakar aan ku xaqiijino waxa loo yaqaan meditation ama ta'amulka isaga xalqada ma ku sharxi doonaa waxay saawgeed filosof Socrates markii uu la niqaashay ardaydiisa raggii uu xidhnaa jeelka ku hayay ruuxda iyo arrimaha ay ka yaabeen fikradiisa ay ka heleen waxay soo jeedeen inuu ka baxsado inuu iskaga tagaatina oo ka dhunto jeelka iyaguna ay arrintaasi damaanad u qaadayaan in aan waxba yeelin ase ahaatee waxa uu haddii aan anigu idin baray in aad qaanuunka raacdaan oo qaanuunka wada ixtiraamtaan ma noqon karo koow ugu horeeya ee jabiya qaanuunka saawgeed in kastoo aan ka soo horjeedo xukuumadan oo markaa xukuumad baa jirtay Atina xataa dimuqraadiyadda Atina waqtiga uu ka soo horjeeday xataa dimuqraadiyadda casriga qaab ka metelaysa fikirka xalqada dimuqraadiyadda ka gaali doona saawgeed dimuqraadiyadda Atina ee uu ka soo horjeeday iyo xukuumadda Atina ee uu ka soo horjeeday haddana iyada wali sharciya oo taagan saawgeed qaanuunka ay dhigatay waa in aynu dhaqanayo yiri casrigan oo isbedeshay حد لكن عصر جيسي ويحيدين الاحترام قانون كوايو وقت جاه ما جرين قانون ساوجد تكو حي القانون دي وهرية قانون سميستان ساوجد مركي وهرية قانون سميستان تكون احترامان بهيت ساوجد فيلسوف سقراط مو قالانين إن وكبح صدا تشالكي ساوجد وكان جد شكرا لنا جد كي سيبو كعبي يركد بودرامي inaan marqadii saxin karayn oo dhacay ardaydiisina wuxuu ku yiri hasiideynina ilmadiina waxaad aasaysaan waa haragan ee ruuxdii wali way joogtaa filosof Socrates waxa kaliya ka baran karnaa waxa weeyaan inuu dhintay falsafada maaha inuu dhintay xikmadda maaha inuu dhintay aqoonta maaha inuu dhintay qaanuunka la ilaaliyo oo xikmadda la ilaaliyo oo aragtida la ilaaliyo in dhimashadu tahay shay سهلة هدي أتسويسو آخر ونعكسن هدي عاد نرشاد ونوراتي سو ونعكسن بس عاد وين كبرنا كرنا حويا إن أين إسودينا السؤالها فكرة دي سكول على سن إن أين دالين كرنا إنه فكرة دينا دالي فكرة هذا دالي أقوان هذا قاعد هدف كاجو هنا نقول هدف كاجو ساعة ده وأنت إنه لي يا سقراط إنه لو أقوان تا كنا لو سؤال شيء سويدين تهذا بارست حقيقة ده قاعد نساعة ده هكذا قاعدين لعقته كريه
waxyaaba badan oo kale isticaadadu ku jirtaa dhammaantiin waan salaamaynaa iyo xalqad dambe